qaxootiga Soomaalida ee xirada Al-Qaras ee dalka Yemen ayaa waxay ka cabanayaan dhibaatooyin adag oo dhinaca nolosha ka haysta. Caruurta waxaa ku dhaca cudurka shubanka iyo nafaqo darro taasoo qaarkood ay u dhintaan sida la sheegay. Wariyaheena Yemen Jacfar Kuukay ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Sanca ee dalka Yemen. waxaa aad hoos ugu sii dhacay xaaladda nololeed ee qaxootiga Soomaalida ah ee ku jira xirada Al-Qaras. dhibka ugu weyn ee haatan ka taaganaya nafaqo xumi ay qaxootigu u siman yihiin, caruurtuna ay ugu sii nugul yihiin. muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa Al-Qaras ku geeriyooday caruur fara badan oo inta xanuuno sida shubanka oo kale ahi ay haleeleen, awood u yeelan waayeen in ay iska caabiyaan maadaama ay markoodii horeba nafaqa darri la liidanayeen. waxaana sabab u ah garaamka qofka loo qoondeeyo bishiiba oo aanan toddobaadna ku filnayn, iyo caruurta oo aananba hay-adaha tixda ugu jirin. kadeedkaasi dhanka nolosha ah waxaa u sii dheer mid ka sii mug weyn oo dhinaca aadaminimada ah, iyadoo in badan oo Soomaalida Al-Qaras ku jirta ahi ay qabaan tacadiyo kala duwan, isla markaana ay u dheer tahay cagajugleyn ku aadan inaanay warbaahinta iyo hay-adaha xuquuqda aadanaha dhibkooda daboolka uga rogi karin. Khadra Daahir Cabdulle waa hooyo Soomaaliyeed oo dhibaato ay u geysteen ilaalada xeradu u jiifta muddo ka badan 10 sannadood, isla markaana aanan helin daryeelkii caafimaad ee ay mudnayd. dhibaatada aan u soo gaartay maalmaha kamid dad tahriib oo imaadeen carabtu waxay dhahaan gabar ka baxsanayna, Soomaalidana waxay dhahaan gabar haddii maanta gabar Soomaaliyeed anaka horteena lagu xoogay dhahaan berina guryaana loogu soo galaa. Soomaalida dhan way baxaan, dhagaxay qaataan, masaajidaday ka qayliyaan soo baxay dadkaanay berika maal guryaana loogu soo galaa, gabdhahan ka korsanaa hadirtaan intii goorgoorta dadkan iskala hadalnay. bis Soomaalida iyo carabtii way istagaaleen. anina umulo ahaa suuq markaa aadana xabadihii faraha badnaa oo hoos u socdeena mid gadaal iga soo gashay, intay iga dhacday lugaan ka jabay, isbitaal la igey. isbitaalka markii la igey camaliyaa galay, lafaha dhana la iga soo bixiyay. haddana camaliyadii waa ku guuleysay, waa 5 ka camaliyo galay, camaliyooyinkiina ku guuleysay, waa ku naajix waay. dhaawaca gaaray oo aad u darnaa ayaanay suurtagal noqon in gudaha Yemen wax looga qabto, waxaanay dhaqaatiir xaalkeeda loo bandhigay ku taliyeen in la geeyo wadan Yemen ka baxsan si lixaadkeeda loo badbaadiyo. laakiin waxaa jira caqabado fara badan oo arrintaasi hortaagan, keenayna intaasi ay riyo uun ku ekaato. waxay ugu dhaan haddii adiga UNHCR markaas wafdiga imaadoon aad dhihi doontid dadkaana jabiyeen, hadda waxay dhahaan kuwadeena mukalla ku geynayna, doona ku saarayna dalkaas Soomaaliya dhexdiisa kugu tuurayna. ana waxaan anaga u jaban Soomaaliya ma ka bixi kara, haddana hadartaan ma baabuur xitaa ma fuuli kariyaan dhaan iska dhaaf an doona raacay yirgirtaas ma ka bixi kari. haddii wax dhibaato ay noqon wallahi meesha in lagu dhameystira iga roonaan dhaan markaas oo dhinto. khadro oo ay murugo xoogani ka muuqato ayaa dowladda Soomaaliyeed iyo guud ahaanba Soomaalida ka codsatay in ay arrinteeda soo farageliyaan, mustaqbalkeedana badbaadiyaan. codsana dhibaatada aan ku jiro xabsigiisa ku sii jira dadka oo hadda xeradan qaxootiga jooga xabsiga ku jira. ana xabsiga mid ka sii xaq jira ku jiraaya, aniga qolkaan ma ka baxo 12 sano qolkaan hadda ka baxo musqusha taga ka soo baxan sariirtaas oo kor imaada. saas daraadii waxa ka codsana aniga in oo banaanka iftiinka la ii bixiyo oo lugteedii la ii kabo oo wax la ii qabto ama taqaan niyadeedii oo saaq oo igu dhismata ku hela raba. maaha Khadra oo kaliya ee waxaa jira 10 ruux oo kale oo guryahooda kula jira xadgudubyo dhinaca aadanaha ah, isla markaana aanan awood u lahayn in ay soo bandhigaan. Jacfar Kuukay, VOA, Sanca.